يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة، إلهي وحو قرآن كينو قلت المامية بري إنينو حقوق فكرنا warkuwa iimaanka laga helayo alla ka cabsada baa ilaahay yidhi waltandur nafsun maa qadamat liqadin baa ilaahay yidhi naf waliba ha eegto berri waxay u horumarsatay. habeenkii markaad seexanayso bal xisaabta oo waxaad isweydiisaa war haddaad caawa naftu kaa baxda maxaa kaa horeeya. oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kaladiina nasu llaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun. إلهي وحين الماما يا سبحانه وتعالى كوا مؤمنين تايميا وقتي أنا قاعدين قلوب تودو أي خشوع دبا إلهي دو إلهي الذكر جيس يوحى حق الله سودة شيء خشوعان وأنا لمد نقنين با إلهي دو كوي كتابك اللسيي وفطال عليهم الأمد وقتي قو كل راضي دبتنا وقتي لو ديري قلبي إنك كقاضي. إذن أيها الأحبة، نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحصام ري حبال دبتنا وحولي من صاحب هذا القبر وارحبا شان يا كجرة واحد هادين فلان هبل با كجرة دبتنا وحولي رقعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم كاحباشا كجرة ما أنت صوما ركتان لبا رقعدود وصلاة أيو وحا أدون هيستان ودنك جعلية ما أنت بني آدمka adduunka korkiisa jooga waxaa jirta xaqiiqo uu isku wada waafaqsan yahay xaqiiqat almowt. waxaa bini aadamku isku wada waafaqsan yahay in la dhimanayo. qof kastoo aadan oo dunidan jooga inuu maalin ka bixi doono. su-aasha adag ee u baahan qof kastoo bini aadam inuu isweydiiyaa waxay tahay famaada bacda almowt. tan inaad ka tegayso waad ogtay waana la hubaa. hortaana dadkii soo maray waa ka wada tageen. ilaahina subxaanahu wa tacaala isagoo xaqiiqadaa sugaya buu nebi maxamed wuxuu leeyahy innaka mayitun wa innahu mayituun. diciduu nolol loo dayn lahaa sayidulmursaliin baa nolol loo dayn lahaa. walidaalika baa ilaahay wuxuu leeyahy innaka mayit nebi maxamedow adigu mid dhintay ama mid geeriyoonayaatay iyaguna waa kula mid baa ilaahay leeyahy wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mita fahum alkhaaliduun kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam. idan adduunka waa laga wada tegayaa waxaana la wada rumaysan yahay haadihi daar hiya daaru mamar wadda inay tay qofka socodka ahi waddada uu qaado inay la mid tahay. ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum. geerida ka baxsanaysaana ka ordaysaan waa idinla kulmaysa. bini aadamku geerida ma jecla. meel yari marka ku xanuunto xagga dhakhtarkaad u cararaysaa. waxaad hanti haysatoo dhammaad ku bixinaysaa. waxaasoo dhammina waa uun geerida bal haddaad dib u dhigi karta inaad dib u dhigto ama inuun inaad ka baxsato. إلهنا وحلا يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأيضا لكل ما يجري داسم حكى دنبايا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وحكى دنبايا وحوين ربي ليس ارتاقه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن قريدة وحكا دنبايا والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى إلهي نتسرتاكت وحكا دنبايا وإما الجنة وإما النار. ولذلك بقى إلهي وحين لي آيات كأنه مركز طبع آخرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وارهد مننا با إلهينا ليدن كان مسلمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا بقى أماني وحما ما ترتو آخر عمل بقى لوجو ديار قروبة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إلهي وحلي أماني دي نماها يتأهل كتاب كمدنا بقى هو عمل آخر السعي شقى لوجو ديار قروبة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إذن أيها الأحبة آفاتك وين كان إنو دتكو الديار نقوم وايو كانت دتكو إنو آخر حسوسا وايو كانت دتكو إنو حباش أرك كري وايا iyadoo dunida dadka hoose ka badan yahay dadka saaran magaalo kasta magaalada ka dhinac dhasan baa ka badan haddana bini aadamku inuu daaraha arkay xabaalaha arki kari waaya waa xajab qabta waxa dhinacaaga ku jira ee dad jiifa inaad arki kari weydo ee daarta ay kuu muuqataa waa mashkilad yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun kuwa ilaahay ka gaaloobay baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay daahirka noloshay garanayaan baa ilaahay yidhi ama aakhira iyo xaggeeda waa ka moogan yihiin waa dhoohan yihiin. daba maxaa ka hor taagan bini aadamku xaqiiqada uu og yahay inuu u diyaar garoobo ulaha hiya alghafla waxa koowaad aynoo diidan inaynu diyaar garowna waa alghafla waa dhoohani waa moogani waa adigoo الحقائق الكبرى اسمود موتسينية ربا إنا نتحسوسنين أدقون ربا إنا داخر حسوسا أدور ربا إنا جنية النار حسوسا سدردد باهله وحلي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إلهي وحوينا لي يدتك وحكو سعود وهذا حساب تودي إن لقوا حسابنا أيوه حالك حسابنا أيوه وكستوبرية دقيقة كستوك الصومر تالو حسابنا أيوه واحد قياستا واحد صور نوليد واحد صور قبطي واحد سو جرتي واحد كسو فكرتي واحد أهان جرتي واحد قبطي ورب السماوات والأرض وكو يديني ولقوا لي ولي إلهي يرتي سكن دقاقي ميسي قدم عبد يوم القيامة ما دقاقيان إلى يا أسئلة ذا اللي ويديه موياني إلهي نوحينا لي دتك حسابتي وي كل دودي إيانا وغافلين إيانا وغافلين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث حق الرب قودو قمي مادو وانو عصب أو إلهي دنكي سكتمي إلهي وحي مقلاني يقول ولي عيارتك وشربا إلهي إلا استمعوه وهم يلعبون dhagahooda waxay soo gaadhaa iyagoo wali cayaaraya oo laahiyatan quluubuhum baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo furaash yar ku jiifa salli oo salligii uu ku yaalo calaamadiisii salliga markaad ku seexato adigoo feedha qaawan waxaa kugu sawirmaya xariijimaha salligu uu leeyahay. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaas oo salli intuu ku seexday salligii uu ku sawiran yahay calaamadihiisii adduun sallu kaga jiifaa maaha inuu adduun waayey. saxaabadu iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhti aanay waxaysanin iyo wakhti ay waxaysteen labaduba waa soo maray laakiin adduunkan marnaba qalbigooda gelin ee gacantooda ku jiray. ولذلك ابو عمر وحكوا يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوفر من هذا ما الفراش يرى كان كفي عن يالت يا عمر ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب صار في يوم صاف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها.
النبي يقول عليه الصلاة والسلام عمره أنا إيا أدون محانا قد حيا أدون يا نقا محانا قد حيا إلها نفتيدو قعنتي سكو جرتان كل دارتي أدون ميو يهيبا تساليسو ننصع عطاء ومالين حقايا صعدة وقيد هرصدي ساعد قيد هرصدود دي بتركتكي كاس عقل قيسة هداد أدوكو بس سوق عداد صعطاء هان لهاي وعد عدو هو كلاتو واد قيد استراتا هرصو محاد كيف فكري لهاي ما دارا كردسو ما فرشان دقو محاد كيف فكري لهاي عقلية كون أدونك جعل ولا طبقة هذا فرشان تيو حردان ودي تامبوغي فرشان يو حبال الله نسا لكن الإنسان الفطري بني آدم كعادي كمان تدوني دا جوغا قار بحجر الدارين تيدستان هل هبين سنة كيو هيدا لكن بني آدم كفطرة دي سي آري حمانين وحو فكرا اوكي واسكو ميدينا دينا عدكتو يانا تصلي ديغتو يانا اسكي راتشيفسوتو دسي مرة ساعات كدب أتكعيسي اهتمام بدن مصيو جيتكو ساعد هوس جوغيو سيدو هوس جوغيو وحنا بيقول يا نجي أدون صاصا نسكرنا رجادان دير ابن آدم كسكر دادعين السيدة دبا قرآن كمركا لتشوغو ومذموم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كورن با إلهي لي دادكان هدانو الرحينا سنده الله بديو لكن هو يما الضمركا وحي الله يبو هينا وكدن بيو ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون با إلهي كتل مامية ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يهود با إلهي كورمية يقوى مشركين تبا وحي جعليه كن سنة دي عمر جيسا قفك لغا ديق لها حتى هدي كن لغا ديق با إلهي لي ما كن بكاعل النار وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون إذن أيها الأحبة رجدوا وين كوبناتا نبي عليه الصلاة والسلام خطبوا جاحي سيابا بدن بي وصوران علمادو خط مربعة سكوير أفرقيث له دبيتنا حريق كانوا كده حصاري حريق ذاك على حريق جمو ويالي دبيتنا النبي وحولي كاسوا بنا آدم كيد كاسنا وأجشيسي سكوير كان صارني أمل كيسونا وكاكسي بحسن بولي وحريق ذاك كسي بحسن سكوير كير وهذه الخطوط الصغار الأعراض خطوطا يريد أن عيدا وبحضينا ومشكلات كان كل بها ليلة فإن أخطأوا هذا نهشه هذا دات كان كبد بعد كان باكو قدعي دات كان كبد بعد كان باكو قدعي إلى هي مركو ضمبيسة نفط لغا قبطه محا حلقة حلكو حويا أمل كتشوج ومحي سميه استعد ليوم القيامة أو ليوم الآخرة أو للموت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نندل يردي كم من الصحابة أي قرب كغبط ونندل يراه عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهذا اللي يرى في مقتبل عمره كجرة فلا وحين نقلنا إن تقال دي كواد يلا قريبي وليدا دو عرباتي قلي ميسيد بدر يملا تقال دي كواد ولا قريبي أحد يقول حكوا كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل وضي لما هضل يا نبي محمد إن يرب ولا هضل إنك يرى يولا هدي وحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أدون كان واحد كوا هاتا سيدي إن غريبة سترينج بقالة صوغلي أو عابر السبيل أما مد شتك قد باية كوا هو يسوقوا ويلي عبد الله بن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيو يسوقوا نوحوا رنشري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أرق ويل كاسي سيدا ويلي وركي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيفي عن بو فهمت مركاسا إساقنا التلديسي وحي نغطي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هداد قلبيساتو واغا برقيسا سوقين كهرين هدي من دون تكو تلقل وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء
haddaad waa bariisatana galabnimaha sugin. nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ina baray xadiidka marka la seexanaya waxa la yidhaahdo iyo marka la soo kacayo waxa la yidhaahdo. markaad sii seexanaysana waxa lagu baray inaad sii tidhaahdo ilaahu naftan haddaad qabato una hariso. يعني waxaad ku talagelaysaa inaanay soo wada kici doonin. ولذلك وردي waxa lagaaga dhigay inuu ku ahaado markaad jiifsanayso aakhira xasuusteeda inay wardi ku ahaato, amalka inaad joojiso oo ilaahay baryayso subxaanahu wa ta'ala ilaahu haddaanad soo celin naftatan nahu naxariiso. haddaad dib u soo celin doontana ilaahay waxaad ku ilaalisaa dadka saalixiinta waxaad ku ilaalisaa. markaad waa bariisatana maxay dhabaa lagu yidhi waxaa mahad iska leh ilaahay geeri dabadeed soo kiciyey. yacni jaanis baa laysiiyey qof le weeyaan. markuu seexanayey jaaniskaa muu hubo u dardaarmay. markuu waagu baryeyna wuxuu ku faraxsay in rabbigii jaanis siiyey oo ilaahay wuxuu ku mahadinayaa in la siiyey nolol geeri dabadeed. sida awgeed ayuha alaxiba cabdillaahi bnu cabbaas baa ninku yidhi ila tali. dabeetana ninkii isagoo waaninaya wuxuu ku yidhi iqtanim 5 qabla 5. 5 hortood ka qarimayso. waa maxay intaad dhallinyarada tay dadaal oo geeri gabow ha sugin. dadku waxay yidhaahdaan xagga dambe aad wax ka qaban doontaa. war xagga dambe tamartu way dhammaataa. mahma aad caqliyaysato caqligu waxba ma taro haddaanu awooddi fulinaysay jirin. awooddu waxay joogtaa intaad dhalinta tahay. intaad dhalinta tahay baad wax qaban kartaa. markaad gabowdo caqligaagu wuu kori laakiin tamari ma jirto. idan wax qabadku xagga horuu jiraa. sidaa awgeed buu ibnu cabbaas wuxuu ku leeyahay ninka kan dhallinyaronimadaada qaniimayso. waxaad daaco iyo cibaado iyo khayr samaysan karta intaad dhalinta yar tahay samee intaanad gaboobin. wasixatika qabla saqamik inta aad caafimaad qabto. xagga dambe haddaad xanuunsato dee tamar dhigtayana waxaad wax qabsan kartaa waa maxay waa intaad caafimaadka qabto. waghinaaka qabla faqrik intaad wax haysato intaanad faqrinin. bini aadamku inta uu qanigayay buu ugu shaxiixnimo badan yahay waayo waa intuu ugu brogaraamka badan yahay. markastoo shilin kuu kordhaba brogaraamadaada badanaya. saa daraaddeed baahidaadaaba tiro badanaysa. xogaaga yar markaad haysatay brogaraamkaagu uu yariyey waxaa laga yaabaa waxaad haysato dhan aad bixin karto wax ka bixin kartid. ibnu cabbaas wuxuu leeyahay isagoo xadiidkaa nebiga u tilmaamaya qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam lirajulin wahuwa yacidu.ghinaagaaga markaad wax haysato wax la bax intaanad faqrinin. wa firaaqaka qabla shughlik firaaqada intaad tay. ninku intuu dhallinyarada yahay buu wakhtigiisa leeyahay. markastoo aad sii weynaato wakhtigaaga waa lagula yeelanaya. bulshadaa kula yeelanaysa, qaraabadaa kula yeelanaysa, asxaabtaa kula yeelanaysa. saaka markaad soo kacdo adigoo xaggaa u socday xaggaasay kuu kaxaynayaan. markaad se dhallinyarada tahay xidhiidhkaaga bulshadoo dhan wuu kooban yahay. labaa saaxiibatiin oo warbar saaka iska waran xaggaad maraysa aad ku tidhaahdo ayaad wax xidhiidha leedahay. xidhiidh kale ma lihid. walidaalik waa inuu wakhtigaagu juhdi isu bedelaa. waa inuu camal noqdaa. firaaqadii baad haysataaye ka faa'iidayso. wa xayaataka qabla mowtik buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. axadu saalixiin ayuu boqorradii muslimiinta nin ka midii wuxuu ku yidhi limaada nakrahi ilmowt maxaanu geerida u nacnaa buu weydiiyey. dabeetana wuxuu ku yidhi camartum addunya wakharabtum alaakhira watakhaafuna an takhrujuu min alcimaari ila alkharaab. adduunkaa camirteen buu yidhi de shaqadiina shaqa adduun noqotay. aakhirana waxba iskamaydaan horraysiinin. marka waa logic buu leeyahay inaad nacdaan inaad meesha camiran ka tagtaan oo meelaan waxba idinka horrayn inaad qabataan. waa nacaysaan buu ku yidhi. ayuha alaxiba bini aadamka wuxuu noqday fakarkiisu fakar adduun. adduunka maxaan qabanayaa maxaan helayaa maxaa ii soo gelayaa. xataa wa huwa yusalli xataa markaynu salaada ku jirno 5 daqiiqo aynu ilaahay is hortaagno 5taana waxaynu xisaabinaynaa adduun oo caqligeenna ku jira. bal qad naxlamu biha
وكل ريونا بني آدمكو وحا أكتيس يالوم كل ريونا هداد ريوين كي صحابة دبقوا النقطين نبقوا فسيري جري نبقوا عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح مركو تكده أيوه حورن جري من منكم رؤيا وارحل إياه وحركي قاسي صحابة وشي جرين وحي أركين دبتنا وفسيري جري ريوين كا هداد دبقوا النقطة كتب الحديث انت بدن جنة إيا النار إيا آخرك ورميا انت ugu badan le wax diin ku saabsan bay ka waramayaan waana markii aadaanka ku riyooday kan ku riyooday kan ku riyo aakhiro inaga laakiin riyooyinkeena hadaynu iswareysano nidhaahno war bal maxaa ku riyooteen waxay u badan tahay dhammaanteed inay adduuntay yani qofku wuxuu mahmuum ku noqdo ayay ruuxdiisuna la tacaamushaa walidalik ayaa waxay yaraaday waxaynu aakhiro u qabsanayno waxaynu ula baxnay waxaynu fikir aakhiro geysanay waxaynu waqti geysanay waxaynu hanti geysanay waxaynu beerannay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa gharsi alaakhira jannada beerteeda sida loo boorto subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar kuwan baa lagu beeraa beerta adduunka waynu ka fakarnaa lacag bay u baahantay waxaan bay u baahantay inaynu beera samaysano adduun waa jecellay laakiin beeraha aakhiro guryaha adduun inaynu dhisno waa jecellay laakiin nebigu wuxuu tilmaamay aakhiro guryaheeda si loo dhiso walidaalika ayuha alaxiba ninkii muslimka ahaa ee caalimka ahaa baa waxaa la weydiiyey ninkii baa wuxuu yihi famal camal haddaa bal maxaanu qabanaa bal sheeg wuxuu ku yidhi naftaada ilaahay kitaabkiisa u bandhig إلهي كتاب كيسو حلي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بغرك سليمان لورنشري وركان صومالي دو قالوا مركان نيكي ويدي أين الرحمة الله بيري دبتنا الشيخ وحوق جوابي إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وأنا إلهي نحرستي سادتك قصر سأقول ماذا إلهي نحرستي سي وحيد إلهي قرآن كوحكو إلهي نحرست عليه كوى السماها السمائية يقول ودهي إذن أيها الأحبة محا آخره غافل كينو قدقي نور سببات من تلمام دونا تكود وطول الأمل وأملك يدي الديلة دي الرجادة ينقب نور دير قف إسلاء رورتا نفتو كابا حيساميون وجرها قف ولبوحو إسلاء إن شاء الله عمر مديدة كل وحوقابا هريد دنباد حاجة دنبك الشقيساتو قف إسلاء رورتا دمان أما برا دمان أما بيشا صوص عطاد دمان مجرو وحين سوضا لان هاي ومدحين كجرها إن شاء الله كل وحا هري وحاد وحقوق بسطه ودنبايا إلهينا وحين ليه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بايلهير هي وحي وأركان آخرة هي قيامة هي قريد هي وحا بعيد مدفق أننا وحي نوغم مغطى بايلهي قريب مدآد الدو استاو قيد بكوي قال مركو قال لك ورمي يوحولي ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون إلهي مركو كوا قالت كورمي يلا يديس كغتك نبي محمد عنان وهبر برسدان وهكون راحيستان ويلههم الأمل رجادها كوبد الداشان هايسنا كل يدي عمرك فصحك هدايا حق دمبي إن شاء الله تعالى أيضا حقا بندونتا فسوف يعلمون بإلهي سبحانه وتعالى إمام الغزالي رحمة الله عليه أيها حليي رجدا ديري أمل كان ديري يدي لدن فوقي لبا شيء با وأسلب لي الجهل وحب الدنيا وحكينا والدنيا جعيل وقفوا باشا ددن كيدي معان كيدا يو أي لفي عناته آخرية وحكدا بينا ويلابه إلهينا وحلي بلا يدن فرصاد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون
إلهي وحلي من كان يريد نك أدون شعيل قاضه نك أدونكم مشغوليو وحيش أدون يهين إرادة الدنيا باوحى الوحري أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار كلا بدنا وجهلي وقفك الجاهل كان نقضى واحد ضمبية وقفك الجاهل كان نقضى حقيقة الدنيا وقال هذا فيلسوف هذا الشيخ تقار كم ده أيها وحي وأركان نولا شيء أنا وحبق قبرنين وهايو وحلي دوان كتغيا هاي قيمة السمين السابولي الدنيا كلها عبث الفلسفة العبثية وحلين محان قبانيا وحكستوان سمين سوبرين لمن ما يبولي دن وهنا نسكدها إياه وحي دونا واحد منهم هي إسلانتي سيدي لي بالليلي يضو فرح سن يضو قصة للسؤال كود دبتنا وضنوه جري ويدو قلي وفرانسيسكي فلسفي وقوينا فرانسيسك وقت يوقس كان حكومي سلاتو قبيب ودلي فلسفة الوجود ما حد عيبها الليلي ولي بمركو الدلي ببوليس قال الله هذا وحيري نوحان دلي حاسكي مركا بوليسكو شغدي ساقب صدو والله قبطي والله maxaa dhacay waxaan arkay buu iyadoo faraxsan markaa waxaan sii buu kulay dee halkan wax kale ma yaaliin iyadoo faraxsan oo ka tagto nothing else wax kale oo tan yaala ma jiraan ee laxdada ay faraxsantay kullayba haday ka baxayso iyadoo faraxsan ka baxda baan sii buu leeyahay ilaa madaxweynaha kayskii la gaarsiiyay aqlu faransa la xidhi kari maayo baa la yidhi say la yeela waxay yiraahdeen musaxaadka aqliga iyo meelaha balangeynay lan waa ceeb in la yiraahdo France baa xidhay aqligeedii waa wax ceebe waxaan uga dan leeyahay adduunka haddaad xaqiiqadiisa garan weydo kaasi xaqiiqatu dunya wuu gartay laakiin xaqiiqatu aakhira buu garan waayay ma bacda almowt buu garan waayay adduunku wax la isku mashquuliyo inaanay ahayn wuu gartay weyn inaanay ahayn laakiin wuxuu garan waayay famaa bacdaha maxaa ka dambeeya ayuha alaxiba faraq baa u dhexeeya amalka iyo rajada iyo طمع bay yiraahdaan في اللغة العربية أملك waxay yiraahdaan waa meesha aad u durugsan ee aad rajaynayn inaad hore u gaadho طمعنا waa meesha qariibka ah bay yiraahdaan markii baad isleeday waad gaadhaysaa rajaduna waa meesha dhexdhexaadka ah bay yiraahdaan nabi ibraahim markuu ilaahay waxa agtiisa yaala hunguriinay muxuu lahaa والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلهي قاعد يسوي حكوا كذا وأحلى الرجاية وأحلى طمعه دابا أيها الأحبة أملكم إن أسترهد اللي من ميس إن أسترهد وقت باقوها رينا سوا حكينا وإما الجهل وإما حب الدنيا بين هذا وجاهل نمو أما الدنيا شعيل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إلهي وحينات الماما يا سبحانه وتعالى كوا مؤمنين تايميا وقتي أني قاردين قلوب تودو أي خشوع دبا إلهي ذكر جيس يوحى حق لسودة شيء خشوعان وأنا لم بدنقنين با إلهي كوي كتابك اللسيي وفطال عليهم الأمد وقتي كل راضي دبتنا وقتي لو ديري قلبي انك كقاضي ايها الاحبه ادونك استرسال الامال الملهيه عن طاعه رب العالمين ما هو حبنان لكن وما لها الله ينقوي تحامي نبي حلي عليه الصلاه والسلام لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين في حب الدنيا وطول الامل النبي يقول عليه الصلاة والسلام كما الزوليو قلبك قفك ويني لبا ولي وكرنا لن يرو يعني الداء دون تقاد لحدا تضوات سديت انت دون تقاد قفك ويني قلبك لبا الشيء وكرنا لن يرو ابو النبي يقول ولا بديه وحب الدنيا يطول الامل الدنيا شعيلك لقى ما قبوبه قفك سكستو قبو سيها دونك وشعليه rajadana lama dhigo amalka waxbaa hadhay
dad sagaashan jirto waxba hadhay un baad isleedahay xagga dambe ayay intaad wax ku qabsan lahayd jirtaa أيها الأحبة الأمل في الدنيا مهلك والأمل في الآخرة الرحمة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أيها الأحبة أمل كداري وحرفة الشيطان هدتك كهلاكه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى آدم بهالكي لغا قال هلكاسي نبي آدم حاج جنada lagaga saaray wuxuu ku yiri ma ku tusiya geedka waaritaanka شجرة الخلد iyo وملك لا يبلى imsa shaydaan lumiyay oo qadiyada ku lumiyay إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم بإلهير شيطان باوحو تصويل سمي وحم مهدي وحد الدلاليي أمل ييد الديلين وقلي أمل كعلاج كسوام حي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث ابن أبي الدنيا صار الشيخ الألباني حسن قلت المامي وحلي إن شاء الله وحينا حديث شاقنينا صحيح حسن بين شاقني نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل نبي حلي عليه الصلاة والسلام ومدن دتك يدي هوري وحيكو قوليستين يكون ليبانين يكون بدبادين يقين قلبي قود دكتي هي زهدي هو إن حب الدنيا قلبي قاعدين زهدي وما هينا فقيرته زهدي وحويان وين أدونك تشعلانين هدوك سوق لك عن هذا كجرو سأوجد النبي حلي عليه الصلاة والسلام وباليقين هي بالزهد قوة ضمبنا وحي كهلاك سميا بالنبي يقولي بالبخل والأمل دعنا ضيقيه يرجو أمل بدني حديث كيكو يا لي رياض الصالحين ترمذي ابن ماجه وريا نكستو الشيخ الألباني سووا ورانا يوا ضعيف لكن علماء كلاي حسن يحكوا الشيخيان الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني إذن أيها الأحبة غفلة وينو كبحا قفك الربين آخره وديار قروبة أمل كدير وينو كبحا تمنياتك أمنياتو إما إن وح مستحيلة تمنييس أما وح بعيد المنالة أي أمنيات الله إله الله بدأ قرآن كإلهي واكو تلمام مستحيل كوامحي يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وشيء مستحيلة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وبعيد المنال كيكو شيغا هذا بقى أمنية لفتيدو الأماني أنا تكرر يوطون أمانيدو أنت بدن والرياضة سوتشيتك qofku markuu seexdana wuu riyooda day dreaming ka waxna yiraahdaan adigoo soconaya madaxaagu inta uu shaqeynaya waxba ka buuxa in badan oo kamidi waa khuraafa waa waxaan jirin in badan oo kamidi waxa laga yaabaa khayaalaadka carruurta kale inay u eegyihiin taysaani dhiclaado saani dhac waxan baad sameeyay dadalkan baad ka bixin waxa madaxu ku sheekeynaya qofku markuu soconayo in badan ina run maaha iyana waa farsamada shaydaanka oo shaydaan markuu ku ballan qaaday waxaan luminayaa in badan oo dadka ka mid ah muxuu yidhi wala udillannahum wala umanniyannahum wala aamurannahum ilaahayna wuxuu ku gabay yaciduhum wa yumanniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa guruura wuxuu ku ballan qaaday waan lumin buu yidhi oo umniya yidi diiladaas iyo riyadaas aan u samayn buu leeyahy dabeetana waxyaabahaasaan fari doonaa إلهي وحينات المامية كو
markuu qaaruun xoolihiisii soo bandhigay qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa yaa layta lana midla maa uutiya qaaruunu innahu laduu xadin cadiim kuwii cilmiga la siiyey ilaahay wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen waylakum hawaabu ullahi khayru liman aamana wacamila saalixa qolaba waxbaa la qiimo leh qolana xoolahaasaa la qiimo leh ninkaasi wato qolana waxaa la qiimo leh maxay aakhiro iyo camalka saalixa haddaba ammaanidu waxba ma tarto aakhiro camal baa loogu diyaargaroobaa laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih walaa yajid lahu min duuni illahi waliyan walaa nasiira waman yacmal min alصaalixaati min dakarin aw untha wahuwa mu'min faulaa'ika yadkhuluuna aljanna walaa yudlamuuna naqiira ilaahay wuxuu leeyahay ammaanidiinna ma aha iyo ta ahlu kitaabka midnaba waa camal aakhiro sacyi shaqaa loogu diyaargaroobaa waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha ciddii aakhiro doonaysa ciddii adduunka doonaysa waa inagii soo marnay man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinataha ulaa'ika baynu soo marnay laysa lahum aakhiro inaanay waxba lahayn cadaab mooyaane amaa aakhiro kuwa doonayaana waa kuwa kan iraadat alaakhira waman araada alaakhira wasacaa laha sacyaha iraado qura maahee wasacaa laha sacyaha sacyi gaara bay leedahay ikhlaas leh oo shareecada waafaqsan oo gaara wahuwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhu mashkuura idan ayuha alaxiba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadii sheekh alalbaani xasanka ku tilmaamayo sanadkiisa wuxuu soo maray xabaal dabeetana wuxuu yidhi man saaxibu hada alqabr war xabaashan yaa ku jira waxay idhahdeen fulaan hebel baa ku jira dabeetana wuxuu yidhi ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum kaa xabaasha ku jira maanta soo ma aragtaan 2 ragcadood oo salaada ayuu waxaa adduun haysataan oo dhanka jeceliyay maanta iminka markaynu halkan joognaa 2 ragcadood miyaynu adduunka jecelnay mise nin waliba in adduun badani soo galaa buu jeceliyay ragcadda inala khaliifa ina khafiifa inala fudud hadda waxaynu isweydiinaynaa sheekh salaadii sunna iyo waxaa ka kaalay faralkii iyo shaqadii baa isqaban waaye maxaa la yeelayaa marka wadaadka waxaa la rabaa inuu fatwoodo uu keeno si salaada loo fudaydin karo ay meesha uga baxdo shaqadu ay u noqoto noloshu waxaanay ka maarmaynin nabiguna calayhi salaatu wasalaam intuu xabaal soo dul maray ayuu wuxuu leeyahay kaa xabaasha ku jira ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum kan xabaasha ku jira 2 ragcadood baa adduun waxaa haysataan oo dhan maanta agtiisa lagaga jacayl badan yahay calaacalku marnaba wax ma taro yaa laytanii qaddamtu lixayaatii waxba ku tari mayso rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima tarakt ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa berri inaynu xoog uga fakarno yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsun maa qadamat ligaddin wattaquu allaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun war kuwa iimaanka laga helayo oo alla ka cabsada baa ilaahay yidhi taqwa allah waltandur nafsun maa qadamat ligaddin baa ilaahay yidhi naf waliba ha eegto berri waxay u horumarsatay habeenkii markaad seexanayso bal xisaabta waa waxaad isweydiisaa war haddaad caawa naftu kaa baxda maxaa kaa horeeya oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kaaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun intaanad hadhow calaalin low anna lii karatan faakuuna min almuxsiniin intaanad odhanin adduunkaynu u baahanay idan ayuha alaxiba qur'aanka ma jiro beyj qur'aanka ka mida baan filayaa waanad 2 qadiyadood mid uun ku arkaynin waa 2 mas'ale ee ugu badan ee ilaahay kitaabkiisu ka hadlo innagana waa 2 ugu yaraynu ka hadalno qur-aanku ima ilaahay buu ka warramayaa sifaynaya wa ima alaakhira waa 2 qadiyadood ee ugu badan ee ilaahay kitaabkiisaba ku yaala qur-aanka 604 beyj uu leeyahay
labada qadiyadood ee ugu tira badan uu ka warramaya ima ilaahay iyo weynidiisu ka warramaya iyo sifaadkiisa iyo cadamadiisa iyo xuskiisa ama se wuxuu ka warramayaa maalinta aakhiro iyo khatarteeda iyo janno iyo naar iyo awsaafteeda iyo waxa ka jira iyo qiyaamaha iyo ahwaashiisa iyo geeri iyo wixii ka dambeeya labada qadiyadood unbaa u badan wuxuu qur-aanku ka warramo aadanuhuna waa labada ugu yar wuxuu ka hadlo bini aadamkuna waxa uu ka hadlo waa labada ugu yar markaynu isu nimaadno intaynu ilaahay ka warrannaa iyo xuskiisa iyo dikrigiisa markaynu isu nimaadno intaynu aakhiro iyo waxa jira ka warrannaa waa labada ugu yarayna waynu ka hadalno xataa mac wadaadada ku dar adduunka iyo si loo guulaysan lahaa iyo gaalka si laysaga celin lahaa unbaaba madaxa wareerisay laakiin aakhiro iyo rabbi waa labada qur-aanka makiga oo inta ugu badan ay ka warramayaan waa labadii nebi maxamed dadka ku tarbiyeeyey waa labadii rijaalka soo saaray labadaa hadduu aadanuhu ka dhismo aakhiro wuu u diyaar garoobaya hadduu qofka bini aadamkii fahmo ilaahay iyo weynidiisa subxaanahu wa tacaala iyo xuska uu xaqa u leeyahay cadamadiisa iyo hadduu garto inuu is hortaagi doono oo uu xisaabin doono oo maalina ay jirto rabbiga aad hortegayso waad ku xisaabtamaysa waad diyaar garoobaysaa maanta qolada ardada ahi marka laydin idhaahdo usbuuca dambe waa imtixaankii maxaa yeeshaan ma seexataan ma istirahdaan insha allah waad naragaato waad gudbi doonta yani waxaad warwar baad bilaawdaa fakadalik qofka mu'minka ahi wuxuu ogyahay imtixaan inuu ku jiro hadda bayjajkiisa inaad qorayso waa baryo kasta waa waraaq imtixaanoo lagu dhiibay waa kastoo kuu barya waa waraaq cusub oo imtixaanoo lagu dhiibay oo waxaad ku qoraysaa ama naar ay ku geynayaan ama janno ay ku geynayaan waxaan ku soo koobayaa markaa hadalku inuu koobnaado abaaba roone aakhiraanu diyaar garowno ilaahayna qur-aanka in badan buu inagu farayaa inaynu u diyaar garowno aakhiraanu diyaar garowno waxaynu nimid duulaan aakhiraba ogeyn ولذلك بينو جيديغا ku darsanay intii ka fikirayeen baynu ka fikirnay markaa si shaqo loo helaa si jacal loo dhigtaa sidee daar loo dhistaa si guriga loo iibsadaa si gaari loo iibsadaa inta iyagu ka fikirayeen manay ahayn qof aakhire ka fikiraya qof adduun ka fikiraya in isku ama isku aragti ama isku waxay noqdaan marnaba macquul ma yahay sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin